xoghayaha gobolka Togdheer duqa degmada Burco ku-xigeenkiisa iyo xildhibaan Gaboobe ayaa maanta mashaariic horumarineed si wada jir ah uga dhagax dhigay deegaanka Shashacade ee ka tirsan gobolka Togdheer. mashaariicdan horumarineed ee laga dhagax dhigay deegaanka Shashacade oo ay ka mid yihiin xarunta hooyada iyo dhallaanka, librariga akhriska iyo qoraalka iyo barashada kombiyuutarka, dayactir lagu sameeyo qaybo kamid ah dugsiga hoose dhexe iyo dhamaystirka saldhigga booliska ee deegaankaasi ayaa waxa si weyn uga qayb qaadanaya qurba joogta deegaankaasi ee Himilo oo u badan haween iyo dawladda hoose ee degmada Burco. waxaana ugu horreynba dhagax dhiga mashaariicahaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo ka warramay baahiyaha ka jira deegaanka, sidoo kalena uu mahad celiyay xukuumadda Soomaaliland iyo qurba joogta deegaanka ee wax u qabatay. dawladda Soomaaliland had iyo jeer waxaanu ka maqalnaa tuuladii wax qabsata baan wax la qabanaynaa. war waa aragtaanoo bartankaan ugu jiraayo nala qabto qolada Himilo ee ilaahay ha barakeeyo hawshan madaxeed iyo manjeedaba leh. hawsha wadaan waa ku hagaagsan tihiin, ilaahay haydan la qabto rag iyo dumarba wada hawsha. waxaan kaloo sheegayaa gudida Himilo iyo qurbaha jirta waa arkaysaa meeshii aynu hawshaynu ku jiray maanta ee aynu u soconayn gacanta lagu hayo. Himilo ilaahay khayr iyo baraka ha siiyo, waa in dad caqiibo la weeyeen rag iyo dumarba ilaahay ha barakeeyo. waxaanu leenahay Himilo ciidankiinu annaguna dee ilaa Himilo waa ku jiraa oo la mid baanu nahay. waxaanu doonaynaa anaa faydan waxba ay farini sidiina u faydnaada hawsha u qabta, annaguna diyaar baanu nahay inaanu halkan wixii dheeligaa ka ilaalin. wax badanna loo qabay laakiin wax badanna waa saluugayna. dhinaca kalena wafdiga ka socotay dawladda ayaa iyana halkaasi ka hadlay ballanqaadyana u sameeyey dadka deegaanka. ururka Himilo oo runtii maanta hawshan aanu u nimid aniga iyo wafdigan ballaadhan oo annaga laftayadu aanan madhnayn qaybta weyn laakiin la Himilo uguna mahadnaqayo. waa u mahad celinaynaa qurba joogta deegaanka ka soo jeeda ee Himilo waxqabadkan ballaadhan ee halkan ummadda ay u iftiimiyeen ee u baahan in lagu daydana waa u mahad celinaynaa. waana qaadanay wax alaal wixii awoodayada aanu kaga qayb galaynaa halkan. isku xidhan dhalinyaro isku xidhan niman mutacalimo isku xidhan xaqiiqatan waxaan isleeyahay halkan baad ya road model ah. baahiyo badan baa laga sanqariyay aan ugu horeysiiyo gaariga waxbarashada dawladda ka doonmay anaa jeebkayga ka doonay anaa keenay gaariga waxbarashada eerna dawlad hoose ahaan naga sameeyay qolka biliiska naga sameeyay waxaan ugu raagtay leerkii saldhigoo in badan odayaashii weydiiyeen imkaan muddo la maqnaayo isaga maanta waa sida marka la eego way ka horeysaa degmooyinka ama tuulooyinka la gareerka waad ku mahadsantihiin ka horreyntaad ka horeysaan. waxaan leenahay kuwa kale war ku dayda sida heer Shashacade yeeleen si la mid ah yeelo. ugu dambeyntiina mas'uuliyiintii halkaasi maraysay waxay si wada jir ah u dhagax dhigeen xarunta hooyada iyo dhallaanka iyo library uu yeelan doono dugsiga Shashacade. waxaana sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Burco ay ugu deeqeen saldhigga deegaankaasi light solar oo ku shaqayn doona cadceedda oo ay baahi weyn u qabeen booliska Shashacade. goobtan aragtan waa 11 maalinimo iyo iska wax u qabso iyo xanaanadii iyo shaqaalihii odayaashii bulkeedkii soconaya iyo qaldadii oo soconaysa iyo Allah ayaa lagama sheekeen. waa xildhibaan, waa wadaad, waa oday, waa sheekh, culimadii waad aragtaan, Cabdilaahi Carab waad aragtaan. hadal ma leh meesha wax laga wadaano waa ilaa koone hogii casaaya Shashacade barkadii u horeysay loo sameeyay waa ka dhex taaganahay dushu ka maraageeyo wasaaradda xanaanada xoolaha hadan doonada dacal baa loo jarana marka dambe. waa aragtaan xaaladda ka xamaras ragga shaqaynaya waad aragtaan marka qaldad baa ku wareegaya la socod wanaagsan. ninka aragtaan shideen Xaaji Ismaaciil Xaaji Cilmi waa dhacay booda weyna magaciisa ku magac dheer Sheekh Ali Ali Rooblo Ali Salama Rooblo waa aragtaan. qoryo cawl saad u aragtaa xaaladda halka marsa waxaa loo sheegayaa dadweynaha inay wax qaban karayaan. waxay doonaan iska daa gaadhi yar iyo haddii badan kale leeyahay wax yaroo koobane waa waxa loo tilmaami doonaa dadka oo ay arrinkani wax tusaale u yahay insha Allahu tacaala inuu dadku laamiye dhisi karayo. hadda marka taa laga soo jeestana waxaan ku sheeganaynaa inuu wadadii gaadha ka saaran laami gacmo wada jir wax ku gooyay.
waad aragtaan gidaarku intuu sii socdo halkaas waa la awdayaa adigu hadda shaqa waxaa lala marayaa bulukeedka iyaguna waa fakartaas waa bannaan tahay xaggana way dhammaystirantay wareegga dambe waa laga soo guuray nimankan aad aragta waa xildhibaan cabdilqaadir xuseen lalaye iyo siciid cabdi yuusuf guddigiisaa ka siciid waa ku jira ninku ku xoogga weynaa dee waa xuduudda hore waryaa ibraahim halkay wax marayaan oo dee ma kula qabanaa midhka waar cabdirashiid waryaa wal maxamed haye war ilaahay mahadii macanta haye maxaad dareemaysaa waxaan dareemaynaa wanaag wanaagsan farxadda iyada dareenkaygu lama qiyaasi karo aad iyo aad buu dareenkaygu kacsan yahay si baan u shaqaynaynaa maanta maalintii labaad dad ku jirtaa maxamuud maalin kale ma kaa go'daa 5 cashayga gooyay waa free baan ahay wiilkama way waad aragtaa gidaarka inta cusub gidaarkii kale iskuulka caddaa waa halkaa ka gala dhismayaashii halkaa kuwa ka sii jeeda xanaanooyinka intii inoo dhisnayd ha socotaa hawsha maanta halkan waxaan u joognaa furitaankii xanaanada ama MCH Shansha Cadde oo aan muddo hawshiisa wadnay alxamdulillahi rabbil caalamiin isu duwe waxaan kugu soo dhaweynaynaa deegaanka Shansha Cadde oo aad aragtay dadka degan tiradiisa iyo baahiyaha yaala alxamdulillah meeshan waxna way dhisnaayeen hore u jireen waxna deegaanka qabsaday hawee dadku marka hore ma oga inay wax qabsan karaan laakiin wax marka hawsha la galo ay ogaan karaan wax la qaban karo imika waxaan u maleynayaa marka loo xisaabtamo deegaanka dadka jooga tiradiisa waxay qabteen waxaad moodaa in wax ka badan ay qaban kari lahaayeen laakiin hadduun bay ogaadeen inay wax ka badan qaban karaanoo hawsha ilaa la galo lama ogaan karo siday tahay iyo waxqabadkeeda iyo ku dhiirashadeeda markaa isu duwa waxa naga maqan hadday noo diyaar yihiin hadday tahay labadii qol ee halkaa laga dhisaa maamulka iyo aan ugu talagalay biyihii waa iska diyaar iyagu wixii lagu shubi lahaa laydhkii waa noo diyaar aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa adiga iyo waftigaaga wixii aan uga baahno wasaaradda awal baan nagoo ka heli jiray sida hadday tahay sabaleega iyo dawooyinka shaqaalaha waardiyaha xanaanada jooga oo asaguna 3 bilood ee xanaanadu furayd bilaa gunno ku shaqaynayay waanu jecel lahay isu duwe haddii aanad ogeyn inaad noo daba gasho soomaali Shansha Caddow midhihii aynu doonaynay waynu helay waxaanu doonaynaa haddii ilaahay ka dhigo sidaa imika taa aynu u qabsannay dadkuna inuu ku heelan yahay inaynu ka sii kordhinno oo u dhagannugolaanno iyo ragga hawshan maanta isugu yimi hirgeliyey ay himala ka mid tahay ee adduunkoodii ku qasiray iyo kuwii kale gacanta ka geystay kulligoodba waxay mudan yihiin mahad loo mahadnaqo ilaahayna subxaana wa tacaala inuu miisaanka ugu qoro rag iyo dumarba yaannu ilaahay ka baryanaa dee sidii aynu hawsha u wadnay yaynu u wadaynaa waxay naga dhiman waynu isnaqaanaa waxaan salaanta gaar ahaan siilayaa oo mudanka siilaya wasiirka howlaha guud cali xasan maxamed xaruntani waxay ka dhalatay ama ka samaysantay 3 madax qurbajoog qolqoljoog iyo xukuumadda 3daas isla kaashaday dabeetana waxaa maskax iyo muruq markii la isu geeyey waxay dhashay in maanta MCH-kan aynu dhex taagannahay oo qaybta ugu weyn ay ka qaateen dadweynaha dadweynaha ku nool magaalada Shansha Cadde in ay iska qabsan ku dhisteen dee waxqabadka Shansha Cadde wuu muuqdaa cali xasan maxamed wasiirkaasi dee markii hore waa ogaadeen waxaa loo doortay baarlamaanka wuxuu ahaa deegaankan kii laga doortay ama deegaanka ballanweyn kii laga doortay ama deegaankan marka la isku xidho ilaa laami ilaa qorolugud ilaa beledhii kii laga doortay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin intaba wuu ku soo celiyey wixii loo doortay hadduu baarlamaan ahaa iyo hadduu ahaa iminka wasiirka howlaha guud yahay intaba wuu ku soo celiyey doorashadii loo doortay iyo markuu dawladda galay labadaba ugu socday reer Shansha Caddena waxay reer Shansha Caddow haddii geed meel ka baxo oo uu caleemaysto geed weyn noqdo ama ari ha harsado ama dad ha harsado faa'iiduu leeyahay siiri baad qaadato sawdkii waa hirgalay alla siiri baad qaadato sawdkii waa hirgalay
adiga shaal baa ku saaran shaxdaada joog alla adiga shaal baa ku saaran shaxdaada joog lama u ducaynaa inay diinta wada bartaan isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir oo munaasabadaasi ka hadlaya dadka ku dhaqan deegaanka Shashacade kula dardaarmay inay ilaashadaan xanaanadani isagoo sidoo kalena isuduwuhu ku bogaadiyay ururka Himilo kaalinta waxqabadee uu kaga jiro horumarka deegaanka Shashacade sida fiican kalsoonida leh isku tiirsanida leh dhiiranida iyo geesinimada inta sugeyseen caqligiinii iyo muruqiinii ku qabsateen waxyaabaha badan ee idin qabsoomay waxaa sharaf ah oo farxad weyn geliyay awal waxaan ku faani jiray magaalo la yiraahdo Xaaji Salax gobolka marka la sheegayo laakiinse maanta waxay soo raacday Shashacade waxaan soo arkay iskuulkii oo si fiican oo qurux badan loo dhisay waxaan soo arkay waxa kale oo la sheegay macadka diiniga ee ka socday ka dhisan halkan ee ardaydu wax ku barato waxaan inimkana joognaa xanaanadii oo ay ku dhisateen xoogiina iyo muruqiina oo deyrkan weyn ee intan la eg lagu dhisay sida la sheegay 3 cisho kaliya markii dadku ay isu tageen taasuna waxay tahay waa wax wanaagsan gabagabadii waxaa xanaanadaasi si wada jira xaliga uga jaray isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer iyo odayaasha deegaankaasi farta ka qaaday ururka Himilo ayaynu doonaynaa inaynu xariga ka jarro guriga waa aragtaan waa guriga waa 2 qol oo waaweyn oo 12 mitir ururka Himilo imka farta ka qaaday hawlo badan oo soo maray markii hore marka waxa kale oo iyana loo diyaar yahay ilaa ururka Himilo iyo ururada Shashacade oo dhan iyo deegaankuba diyaar u yahay in dhagaxana aragtaan halkan yaala laga seeso guri kale ilaahay hadduu ilo suurto geliyo waxaanu si adiga jeer waxaa jiri jirtay waxyaalaha xadhigga laga jarayo ama hay'ado ama dawladda ama cid baa ku soo kordhi jirtay laakiin marka Shashacade anagu waxaanu hadafkayaga weyn wuxuu ku wajahan yahay ururkii Himilo oo ay iska kaashadeen xanaanadan dhismaheeda ayaga iyo deegaanka reer Shashacade geedka 5 qol hore labadan markaas shaqaalihii oo jooga dawadii oo taala xanaanadu way dhammaystiran tahay markaa waxa iminka baahida ugu weyn inuu iska wareysana ay ahayd waxa weeye labadii qol ee qabiyada ahaa waanu dhammaystiray waa iminka wanaga wax ka duubayna dadweyne reer Shashacade oo rag iyo haweenba leh ayaa jooga kuwii dawada ka qaadanayay kuwii soo booqanayay kuwii xadhigga jarka iyo nidaamka iyo qorshaha uu socday aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa ururka Himilo oo wax badan ka qabtay xanaanadan iyagoo dhisay geerka weyn ee wareegsan qolkaas soo jeedo oo ah ANC and BAC oo iyo delivery si xaqo isugu jira oo loogu shaqeeyo dumarka iyo hooyada inta ka bacdi waxaan kala aad u mahadcelinayaa iyagoo oo dhisay 2 qol aad iyo aad u wanaagsan oo aan dhigi doono ugu shaqeyn doono carruurtayda ka weyn xanaanadan waxay furnayd muddo ku sugan 6 bilood waxaan ugu shaqeynay carruur gaaraysa 1200 carruur oo aan ugu shaqeynay caafimaad ahaan iyo nafaqo ahaan labadaba inta ka bacdi waxaan ugu shaqeynay talaalka carruurta waxaan siinay ilaa 850 carruur ayaan ugu shaqeynay oo qaatay talaal kumbuliida inta wax raaca inaan u shaqeynay ilaa 800 iyo dhowr iyo 20 dumar oo hooyo waxaan inta noo soo raaco kale inaan kaga umulinay dumar aad fara badan kuwaas oo tiradooda gaarayso ilaa 30 ku dhow muddadii ay xanaanaas furnay waxa kale inta noo soo raaca inaan ugu shaqeynay dad waaweyn oo dadka loo yaqaan adult OPD loo yaqaan oo dadka waaweyn loogu shaqeeyo kuwaas oo ka kooban ugu yaraan dadka ugu badan ee loo shaqeeyo waxaanay gaarayaan ilaa 2,000 qof tirada inta leega muddo ay furnayd waxa kale oo halkaan maanta taagan dhammaan gruubo ka kooban ururka Himilo kuwaas oo u dhow wax badan qabtay la'aantoodna aan xanaanada furantaanba marka
waxa Soomaaliya ku mahmahada marka looda marka la weeraa la helo ayaa looda la maala haddii aan dhisme la helin meel lagu shaqeeyo ma heleen maadaama haddii markii dhismihii la helay maxay noqotay in xanaanadii la furo ay noqotay haddii aan la helin budget iyo hawshii lagu furi lahaana inaan xanaanadii may furanteen haddaan hawshii budgetkii la heli lahayd already budgetkii waa la helay xanaanadna waa la weynoo furantay aad iyo si fiican baynu ugu shaqaynaysaa maadaama ummadda badan intaa leeynu shaqaynaa maalinta ugu yartaa waxaan shaqaynaa dad aad fara badan oo shaqaynaa ummadii waa taasoo toban tahay wax walba loo qabanaya adeega loo qabanayo waxa kamid ah YNC delivery OBDR screen nutrition EBI majority aad iyo aad u badan qaybaha meesha laga qabtaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ururka Himilo wax badan qabtay waxaanu maanta dhismihiisa noo dhamaaday labada qol aan u rari doono OBD-yada labada qol waa laba qol kulli insha Allah aad iyo aad dhismihiisu waxaan yihiin wada aragtaan oo dhismaadu qurux badan laba qol aad u wanaagsan weeye maanta xarigan ka jaray مبارك عبد السلام حسينو كلاسكيتا شنات maxaa ka soo baxday imtixaankii Soomaaliya maadadii imtixaanku sidan iyo sidii hore in sabuurada lagu qoriyo isagoo warqada daawacaan lagu keeno keebu wanaagsan yahay muxuu ku wanaagsan yahay wuu ka fudud yahay sidii hore muu garanaya laakiin warqadan fahmay magaalooyinka nagu xirana wax lagu xisaabtamaya waxa weeyaan magaalo waliba inta horumar sameeyay nimanka ma jiro balweyn oo dhan iskuul ku fakarayay imtixaankaaga qaybo daawad marka inagu waxaan istusnay dhalinyaro ahaan inay fiican tahay inaynu wax xidhay oo magaalooyinka ka horreeyay cidda magaalooyinka ka horreeyaysa waxay waa raggan odayaasha halkan joogay iyo kuwa haddana iyagii maanta nin waliba ama reero ku batay ha noqdo ama hawshan ugu badan soo hayo ku caafin noqdo waxaa markaa ka taba in la helo cid iyagii bedesho iyagina ay arkaan sunno fiican ay jeexeen ciddan kalena shaqada ku raaxaysato intay kulusha annagu waxaan filaynaa inaan arki doono cid hadhow naga nasiso la bedesho markaa waa qorisuudhii buu shaqadu qaban annagoo taa ka duulayno annagu waxaan istusnay inaan imika bilowno hadhow ka maalin haddii alla la helo koodi iyo daawacaad iyo laydh iyo macallimiintu inta lagu tababaro mid ka mido ay halkan ku qortaan oo ku daawacdaan oo ku rogtaan taana way soo socotaa insha Allah sanadkan bay imanaysaa haddii Ilaahay ka dhigo haddii Ilaahay laga helo nimankan aniga maxamed ahaan isu xilsaaray inaan imtixaankan qarashkiisa iyo balowshiisa galo salaan dabadee dadweynaha sharafta leh iskuul yimid iskuulka shan shacadee hadday maamulaad tahay say qolada howlaha inoo weyda maxamed xasan xabiib tafiicay intaa kadib badan uma bixin laba mawduucoo kaliya tan marka hore aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qolada waday barnaamijkan ee aqoonteeda leh ee horumarka ah inoo waday maxamed xasan xabiib iyo shaafici ismaaciil jaamac aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa maamulaheena sarabaan jaamac dhuux maamulayaasha ama cidda wax dhigta ereyadaynu isku dhownahay ama daabeed ha sheegteen degmeed waxa gaari kara male iyadii iskuullada ayaanu nahay odayaashii iyo hooyooyinka iyaguna arrintan aada ugu dhundaloy qaar baa ku jira mutacalimiina waalidiinta oo iskuulladii hore ka baxay haweenka iyo ragga labadaba waa ku jireen subax walba kuwooda imtixaan ka qaada waxa weeye in imtixaankii sabuuradda lagu isticmaali jiray la sugo iyo kaasaaka keenteen qof walba uu qorqada loo keenayo uu imtixaanka ku gelaayo in loo daayo labadaas isku qabasho male waxaanu taageersannahay dhiiri gelinaynaa idinkula shaqaynaynaa jaanis wixii lagaga soo beegno wax ka qabanaynaa inna haddii waktigu inoo saamaxo amarka ilaahay baa leh sanad walba loo keeno ardayda iyo xilligii ay haboonaataba in imtixaankooda lagu qaado waraaqaha qof walba waraaqdiisa loo dhiibo taasaanu dhiiri gelinaynaa taasaanu taageersannahay sidaasaynu ku wada shaqaynaynaa
وبالله التوفيق سكفي عن فارح هي ويقول لي هاي وشيدة بدأ نسقول لي هذا نسقول مو فاهم امتحانك ورما كايا إنه كسمينا امتحانك يوها هذا كان نسقول وتمرك هوري دي عدي أقول هاي وحنا نسقول صبرت يا وحنا نسقول لكن قفي أقول وفهميان وهذا كتاشر يتم كسر عشرين هي كتير إلى متوجد صبرت لكن وتعالى هم حوي طبعا كسر شيء تقول صار بكرة قاعد ماي وحنا لقى قاعد يا سؤال فربنا أحنا وبقول وأنا وبقول وبوجي أنا بوجي ده ما اللي جاي وكل وكتير لما عشر كلو كم تنجح هذه توك لقى قاعد يجي بقول يا راتب بقول يا لحن بقول يسكت على قاعد على قاعد فهذا تسمع وأولا هي دي وحبر شيء أرضي أرضي خام وسقط وهذا تسمع وحوالي في كل أرضي لو كسر الدنيا محمدين تو ورئيس بيت ولا محمد سوق مو وروح حمود ولا يسوي غضاء وأيو تبكي سؤال صبر الله ما ساعدهم كل شيء هذه لكن ما هو يدي بناطيل ده ما هو يكبر ما هو يكبر meel eegmayna معلمين تنكم والله تصين سكول معلمين تنو